waalidiinta ardayda sharafta badan marti sharafta qiimaha badan mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan walaalayaal maanta waa maalin qiimo badan runtii goob kasta oo la yimaado waxa ugu farxad badan inaad timaado goobta kalaamka ilaahay lagu hayo ee hadalka qiimaha badan ee dunida ugu mudan kulley markaanu anagu bahda siyaasiyiinta nahay waxa laga yaabaa goob kastoonu tagno in lagaga hadlo un siyaasad laakiin maanta ay tahay goob mudan in la dhegaysto la fadhiyo qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay si tarbiyada iyo kalaamka ilaahay ardaydu ay baranayaan farxadooda aanu la qaadanno marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa dhammaan macallimiinta maamulka maxadkan daaru tarbiya runtii waa maxad ay ka muuqato tarbiyada iyo qiimaha u leeyahay xaflado badan oonu tagnay maanu arag sidaa maamuuska iyo mudnaanta leh ardaydu ay u maqlayaan macallimiintooda iyo maamulkooga arday u maqasha laakiin maanta waxaan idinku hambalyaynaynaa inaad tihiin kuwii ugu qiimaha badnaayaanu ka soo qayb qaadanno waxaan filayaa mar kasta oo la derdergeliyo kalaamka ilaahay mar kasta oo la horumariyo kitaabka ilaahay iyo culumta diinta islaamka waa mar kasta oo horumarkeenna iyo hiigsigeenna iyo himilada fogaynu hiigsanaynaa ay horumar inoogu soconayso waxaan leeyahay macallimiinta dadaalka aad wadaan halkaa ka wada oo ha ka daalina ilaahay ajarka iyo xasanaadka ha idinka siiyo waxaan dardaaran siinayaa waalidiinta waxaan leeyahay hooyo iyo aabbo ubadkaaga inaad la saaxiibto ubadkaaga inaad ka war hayso mar kastoo uu maxadka joogo iyo mar kastoo uu guriga joogo muhiimadda koowaad waa inaad ilmahaaga ka war hayso waxa uu gacanta ku hayo waynu ognahay maanta xaaladda dalka ee dhallinyaradu halkay marayso in balwaduhu aad u bateen balwaddaasina ay ragaadinayso horumarka iyo hiigsiga aynu ku soconno laakiin waalid kastoo ilmihiisa la saaxiiba waalid kastoo ilmihiisa ka war haya halka uu marayo waalid kastoo ilmihiisa wakhti la qaata waxa uu ogaanayaa mustawaha iyo qiimaha ilmihiisu halkuu taagan yahay wakhtiga oo kooban awgeed waxaan idinku hambalyaynayaa guusha iyo himilada aad gaadheen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan idin leenahay dadaalka halkaa ka sii wada kolley maxadkuna waa jaarkaygoo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sheekh cabdiraxmaanna waa sheekhay waxaan leeyahay dadaalka aad keentay ilaahay kaa jisaaysiiyo adiga iyo macallimiinta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ما شاء الله هذه آيات ما صدقها دردارك ونسيي كم سلكة هذه آيات لو دكتور كارهان والدين أحنا كنا نروح عليها مرتصرف تقييمها بدل قايها بدل وقت ود النوبحية يوالدين تصرفت بدل